الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. xubnaha golaha wasiirada iyo xubnaha labada gole ee xildhibaanada iyo golaha wasiirada agaasimayaasha bahda caafimaadka bahda waxbarashada maamulka degmada odayaasha dhaqanka bahda saxaafada dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam ilaahay subxaanahu watacaala mahad u sugnaatay oo na soo waafajiyey runtii inaan kasoo qayb galno xafladan qiimaha badan leh anoo ku hadlaaya afka wasiirada saaxiibaday. waxaan u soo xaadirnay inaan maanta qayb ka noqono xafladan xarig jarka isbitaalkan Heegan. waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii isu xilqaantay isu soo dabariday xafladan oo ugu horeeyay Dr. Mahad iyo dhammaan bahda caafimaadka ee isbitaalkan Heegan specialist. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runtii waxaad qayb ka noqoteen financial problem oo magaaladan ka jiray oo dadka caafimaadka ama xanuunsan wajahayaan runtii. maantay haddii qof uu xanuunsado oo magaaladan Baydhabo joogo ama ilaahay ma qadaree problem kale uu dhaco qofka xanuunsan kaliya qarash uma baahanayo waxaa jirayso in qofkii laba qof ama qof kale ay raacaan. dhibaato waxaa laga kulmayaa marka qofkii dhaqaalihii lagu daaweyn lahaa waxaa qaadanayso transportation ku baxaa. dadka qaar uma saamaxayso inay dhulku ku baxaan kuwana hadday emergency yihiin waxay noqonaysaa in diyaarad lagu qaado maalin iyo laba maalin in lasu daba rido la diyaariyo qarashaadkii ugu badnaa oo qofka la daaweynayo bixi lahaa oo ku bixi lahaa waxay ku baxayaan transportation. waxaa intaas kadib la bilaaba haddana qiimihii qarashkii ku bixi lahaa daaweyntiisii qofka. marka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad u sugnaatay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah. haddii aan annaga idin dhihin waa mahadsan tihiin ilaahayna waa mahadsan tahay ma dhaheen. marka ugu horreyn waxaan idin leenahay waa mahadsan tihiin bacdallaahi ilaahay subxaanahu watacaala mahaddaas iskale idinkana idin waafajiyay insha allahu tacaala. waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dadka inaad u dhimrisaan maadaama magaalada baahi caafimaad weli ay ka jirto. ilaahay baahi dabooli kara laakiin in badan dadaal badan inaad muujisaan oo aydan ku dallacina qarashaadkii transportation-ka ahaa naxariista meesheeda inay ahaato insha allah. taas dardaaran ina seexo waa haddii ilaahay raali ka noqdo biidni illaahi kariim. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaa dadkii isu soo xilqaamay maaragtay dhaqaalahan geliyey isbitaalkan fangareeyey iyo kuwo kale oo ku fikiraayo ayaga naftirkooda waa ku soo dhaweynaynaa waana ku buraarujinaynaa waana ku garab istaagaynaa. weli baahida way jirtaa baahi caafimaad deegaanadan koonfur galbeed Soomaaliya intaba waa ka jirtaa. marka insha allahu tacaala majaankiina iyo fursadihiina waa idinkugu ammaanaynaa waana idinkugu hambalyeynayna insha allahu tacaala. waqtiga oo ciriiri ah iyo meesha oo maxaan ku yidhahdaa oo kuleela darteed waxaan ku soo gaabsanaa insha allahu tacaala kelmad yar oo buraarujina oo dadkaan horteyda fadhiyaan u sameynaayo. waxaan arkayay markii la furaayay xafladda waxaa la wacay nin wadaada waxaana la yidhi inuu qur-aanku ku furo. in badan dadka markii qur-aanka la akrinayay kuwa horteyda dhinacayga taagan iyo gadaal iyo kaamirmaanadaba qur-aanka intii la akrinayay meeshii la rabay in lagu qushuuco oo la dhagaysto waa lagu dul sheekaysanayay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna yidhi qur-aankiisa waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun. marka haddii qur-aanka la akrinaayo dhagaysta lacalla in laydinkugu naxariisto oo dhegihiina u raariciya. marka waxaan rabaa fursaddan inaan ugu faa'iidaysto walaalayaalow mar allaali iyo markii qur-aanka la akrinaayo aan ku khushuucno aan ku tadabburno oo aan dhagaysano yaan lisdhihin aayadaha intii lagu furaayaan fursaddan ka faa'iidaysana insha allah. marka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.